daawadayaal halkan aan dul taaganahay waxa weeye guryaha aasmay ee degmada Bullaxaar magaalada qadiimiga ah. Bullaxaar waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn ee ku yaala xeebaha badda cas. Waxay ka tirsan tahay gobolka Saaxil ee Somaliland, waxaana magaalada Berbera ee xarunta gobolkaasi u jirtaa qiyaastii 76 kiiloomitir. Ka hor intaanad soo gaarin Bullaxaar, waxaad sii maraysaa oo sii goynaysaa dhul ballaaran oo raf ah iyo dooxyo waaweyn oo ay camuudi tuulan tahay. عاصمة Somaliland ee Hargeysa Bullaxaar waxay u jirtaa qiyaastii ilaa 136 kiiloomitir jihada waqooyi bari. halkani waxay ka mid ahayd meelihii ugu horreeyay ee ay diinta Islaamku ka soo gashay geeska Afrika. waxa deganaa ummado kala duwan sida Soomaali, Carab iyo Turki. raadadka taariikheed ee ka dhisan magaaladani qadiimiga ah ayaa waxaa ka mid ah barta ay maanta reer Bullaxaar ka haddu u yaqaanaan magaaladii hore. waxay u dhowdahay dhanka badda, waxaana ku muuqanaya guryo muujinaya in xadaarado kale halkani ay deganaayeen. guryahaasi oo haatan badankoodu noqday kuwa aasmay. ganacsigii wax isku beddelka ayaa si weyn loogu sii xasuustaa Bullaxaar, taasi oo dadkii deganaa ilaa hawdka fog ee geyga Soomaalida ay dekeed u ahayd halkani. maadaama aanu jirin gaadiidka casriga ahi, awr xidhiidhsan ayaa gaadiid ahaan loo adeegsan jiray. waxay ka soo degi jireen silsiladda buuraha Golis, kuwaasi oo keeni jiray Bullaxaar badeecadaha ay ka midka yihiin fooxa, malmalka, baalgorayga, subagga iyo hilibku xilliga jiilaalkii. alaabahaasi ayay ku beddelan jireen kuwa ay ka midka yihiin timirta, dharka, shaaha, dunta, kuulaha iyo sonkortu. xuseen xasan oo noloshiisa badankeedii ku qaatay bartan ayaan wax ka weydiiyey bal waxa uu ka xasuusto taariikhda Bullaxaar iyo waxa ay qabtaan dadka haatan ku nool magaaladu. horta ismaalinta ugu horreysay wax dhisaba la yiri Soomaad garan dekedeedina fooqaa imika caaridiisa inoo muuqato ayay ka sokaysaa halkaas ka gali jirtay. halkaas dooyo wax laga soo dejisay magaaladu baac musar baa Soomaad garan East Africa looga bijiray Ethiopia maxay ahaydeen ogaadeenaya ayaa timirtii looga soo dooli jiray iyo subagaba halka loo keen jiray laga dhoofin jiray. Soomaad garan xoolaha markaa bay jireen hargaha xoolaha ayaa laga dhoofin jiray meesha. sekadaha Hargeysa oo kale wadooyinkooda kale lahay. Soomaad garan wixii imika isku wada darsameen ciid baa buuxisay. waa taag karawaagu haysto taa ay meel dalimka aniga badalka ku marnayba Hargeysa looga rarayo kale ayaa looga rarayay baqaarka iyo dukaamaduba saasi ahaayeen. Soomaad garan waa taa imika aad arkayso waraabu galayo. Soomaad garan wadurka ciladaha hadii dhex taagtaagan caynta dhexdeeda iyo deebrooyinkaan fuushanahay. maxaa ku sababay magaalada Bullaxaar inay saan noqoto ay dadku ka tagaan? waa taa Hargeysa camirtay magaaladii tan degmada Bullaxaar imika waxa looga guuray Hargeysa saasay ku baabaaday. imika waxay leeyihiin wax xoolo wax kale leeyihiin ma jirto. geel iyo arin baa meesha la iriirinaya wax kale laga sameeyaa ma jirto. degmada yar imika la keenay imika yar dhaqdhaqaaqa sameynaysa. bal dhanka badda iyo kalluumaysiga si looga faa'iideystaa. aad baa looga faa'iideystaa kalluunka imika naqfish baa noo furan. talaagada ku guranaa kalluunka uu ka buuxayo imika aad ka qaadan kartaa. dhowr jeer ayay magaaladu guurguurtay oo bartii ay ka bilaabantay ka guurtay. Axmed oo ah maamulaha xarunta caafimaadka ee Bullaxaar ayaan wax ka weydiiyey xaaladda caafimaadka ee Bullaxaar. adeegu noo shaqeeyaa, nafaqa darrada waanu daweynaa, EBI-ga waanu fulinaa, adeega talaalka waxaanu fulinaa, adeega dhalmada waxaanu ugu tagnaa hooyada halkeeda, waxaanu ugu tagnaa ilmaha yar 5 sano ka yar iyo ka weynba waxaanu ugu tagnaa halka uu joogo. alxamdulillaah rabbil caalamiin. wasaaradda caafimaadka anoo kaashanayna iyo hay'adda HBA barta qofku jooga baan ugu tagnaa, adeegana si fiican baan u fulinaa. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. maayarka degmadu Ismaaciil Xasan kama maqnay, isaguna uu garab taagan habeen iyo maalinba isaguna uu nala shaqeeyaa. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. kaliya mushkilad waxay naga yar haysta xagga isgaarsiimaha oo aan had iyo jeer lama heli karo oo ay nagu badato. taana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay nalo hagaajin doono. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka Saab, Bullaxaar.